Audio Jungle. Audio Jungle. kulanti waxaan wanaagsan asxaabta kala gedsan ee halkan naga daawanaysa Dayax Films muddo badan bay kala maqneen iskama aanan maqneen waan idin maqneen maanta waxaanu ka hadlaynaa ama barnaamijka aynu ku bilaabaynaa dhalashiyo sinjigiyo waan ka simanahay oo Soomaali baynu nahay saban hore wax tagay saanacadkiyo dhibti maanta suushayo midnima salka iyo suunka loo xidhay adan soo dhawow calaashan Somaliland midnimada guud ee shantii Soomaaliyeed ku soo dhawow Allah yaay Nadiira Nayrus iyo xaalkeeda intaas bay tiri iyadoo matalaysa Soomaaliya u hadlaysa ama Muqdisho oo ka hadlaysa ama Hargeysa ku sugan tahay Somaliland waxay ku soo dhaweynaysaa midnimo ay sheegtay in imika midnimadii Soomaaliyeed suunka loo xidhay Hargeysana ay ku sugan tahay Sahrayley's oo Somaliland matalaysa ayay sidaa ku leedahay waa shantii Soomaaliyeed Shabcaan aadan baa matalaysa Djibouti labada hablood ee kale waxay matalayaan walaalaheena Kenya iyo walaalaheena dawlad deegaanka Ethiopia baraha bulshada ilaa shalay ilaa xalay ilaa maanta inta heestu soo baxday waxay aad u falanqeynayaan ama aad loo buunbuuninayaa arrinta Nadiira Nayrus qaar waxay leeyihiin hal la xidho qaar waxay leeyihiin yaan la xidhino magac loo sameeyay qaar waxay leeyihiin hal la mastaafuriyo qaar waxay leeyihiin gacantaba hal lagu dilo Nadiira Nayrus mar haddiiba Hargeysaba dhexdeedii iyadoo taagan ay Soomaaliya u hadlayso oo ay matalayso oo ay leedahay calankii Soomaaliyeed baan sitaayeen ay laabta garaacanayso oo ay leedahay ku soo dhawaada midnimo Somaliland ay ku leedahay waxa iska dhaafo ku soo dhawaada midnimadii alla ilaahay laan dheeranimo absolute marka sabab loo raadiyo in la xidho iyo sabab loo raadiyo in la mastaafuriyo iyo sabab loo raadiyo taas ma jirto iskoor baa xidhan shalay bay Muqdisho ka timi maanta Hargeysa joogtaa maanta Hargeysa dhexdeeda ay kaga dhawaaqaysa walaal soo dhaw marka dadka aad ka u buunbuuninaya ee la hal xidho hal la mastaafuriyo hal la dilo way khaldan fanaankuna xor buu yahay aragtidiisa arrinka Nadiira Nayrus lagu xirayo waa kaas dadka qaarna waxay baahinayaan oo social media la soo gelinaya oo YouTube-yada aan ku arkayay Nadiira Nayrus Hargeysa lagu xiray waa been abuur weeye been abuur Nadiira Nayrus Hargeysa laguma xidhin kuma xidhna warkaas waa been dawladuna ma xidhin xor bay haysataa si xorriyada Hargeysa ugu nooshahay laakiin ma garan karayo sharciga hadhow marka laaga waxa uu noqon doona anigu inta badan sharciyada wixii sharciyada waan iska fogay waayo anigu sharciye qaan ma yihi siyaasi ma yihi dawlad xilkeed ma hayo mucaarad ma yihi anigu ay muwaadin baan haydee qof Soomaaliyeed qofka aad arkaysaa baan wax kale igama duwan marka de sababan arrinkeeda uga hadlay inuu sharci yahay inaanu sharci ahayn toona midna ma hayo